sanad kadib waxaan u kacay furitaanka oo qura maaha malaal qofkii koowaadee laga rabay inuu jeexo waddada hadalka maanta aynu isugu nimid baa aniga ah madaxweyne sanaanka kadib waxaanu inteeda badan ka soo boqolay sanaag maxaa barasaabkayga iyo maayarkii maayarku turkigu nagaga maqnaa waxaan laakiin reer sanaag waa maayarkii laakiin inteeda kale waxaanu ka soo boqolay sanaag hawshii hawl badan baa taallay sanaag laakiin ta aanu u aanbabaxnay kuna jiray waxay hawshii ninka la yidhaahdo سعيد عويل عارة waxaan ka warramaya sidii ay wax ahaayeen marka duruufta lagu jiro aan eegnay hawlaha inoo yaalla ee kala eegnay annagu dee kolley waxaa laga yaabaa sida madaxweynuhu wuxuu eegayo si ka sokaysaan u eegayna oo isagu dee tii qaran buu eegayaa anna waxaa laga yaabaa inaanu dee inta badan ku binaysantahay qoyska iyaga annagoo ta qaranka baan ka tegay haddana kolley aragtidayadu waxay ku binaysan tahay ta qoyska markaanu eegno dadka maanta jooga laba qaybood baynu nahoo qaybta xumina waa isku wada qolo wixii isla wax hagaajiyana waa isku qolo halkaa waxaad ka garanaysaa inaan culays yari la hor oolin halkaa waxaan intaa uga jeedaa in la dareemo inaan culayskan hor yaallaa mid fudud aanu ahayne inta qoladeeda qulays maanaan haysana intii somaliland oo dhan xumeynayso dhan waxay ahayd in laga soo horjeeda halkaa waxaan uga iftiiminayaa culayska laga soo horjeeda inaanu mid kooban aanu ahayne inuu isbahaysi dhan oo cid walba ah yahay qarankeenuna maanta jibindaabiyo uma baahnayn waxaan islahay waa soo guulaysateen cafis baanu waxaan islahay cafiskoo qura madaxweynuhu ha idinku dhawaaqo markay dee wax adkaadaan halka la dhaafi waayo ayaa dee talada lagu soo go-aan qaadanaya inta iyada iyo in badan oo kalaanu ka nimi waxaanu codsi ahaan madaxweynaha ula nimi in caari naloo cafiyo oo ciidanka naloo qarameeyo oo hubka la farsameeyo oo barigtii saa dambe waxaasi naga wada dhamaadaan waxaan is leenahay kelmad qura madaxweynuhu yidhaahdo ayay waxaasoo dhigu ku xidhan yihin kelmad keliya oo madaxweynuhu yidhaahdo ayay ku xidhan yihiin waa qorshahii aanu ku soconay madaxweyne waxba ahaa inaanu dalbarno cafiska annagoo talada halkay dhaafi weydo marnaba aan diidanayn haddana waxaanu leenahay inta iyadan waxaanu ku wada soconnaa iyo in badan oonu wakiil ka ahay in kelmadaasoo qura maa la yidhaahdo waxaan doonayaa hadalka inaan dul maro une aanan hoosisii marka waxaan rajaynayaa inay maanta noqoto maalintii wax la raacayay wixii aan dhaafin ragga kale odhan doona asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu madaxweynaha qaranka madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada madaxda kale ee qaranka ee fadhida madaxda dhaqanka guddoonka guud ee somaliland suldaan maxamed xirsi oo hadalka iiga horreeyey iyo dhammaan teetal kastoo fadhiya aad baan u salaamayaa intaa kadib dee haddii suldaan hadlay waa in sheekhna hadlaa runtii waxaa kulankan aynu ognahay inuu yahay kulan nabadgelyo ama nabadgelyo lagaga wada hadlayo nebigeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay raaxada adduunku waa 3 shay man kaana aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi cindahu dacaamu yowmi fakaannamaa xiisad lahu dunya baa nebigu calayhi salaatu wasalaam
ninka nabadgelyo haysta oo aan col ka baqayn caafimaadna qaba oo aan cudur qabin wuxuu markaa cuno maalintaa cunana haysta adduunyadii oo dhan buu gacanta ku hayaabaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sida awgeed madaxweyne waxaanu xusuusannahay in nabadgelyadu tahay lafdhabartii ummadda iyo qarannimada iyo horumarka waxaanu aaminsannahay in waddanka aanay ka bannaanayn in la jabhadeeyo oo ciidamo ka dhex dilaacaan waa shay daruuriya waanu aaminsannahay waxaase laga yaabaa shaqo haddii la qabto sidaa suldaanku sheegay in ninba dhinac iska taago oo ninba uu ka eego saawiyadda markii aanu isu tagnay aanu ka eegnay waxay ahayd tii inankii dhallinyarada ahaa uu yidhi aabbow maad kelmadii tidhaahi anna waxay tarta adna aan waxba ku yeelin inankaa un hadhuubka ka buuxiya maad tidhaahid buy madaxweyne sidaa suldaanku sheegay markaanu eegnay culaysyada jira arrimaha maanta bari ka taagan ee aada sida dhow ula socoto waxaanu hoosta ka soo xariiqannay malaa waxay ku fiican tahay kelmed idinkana wax idin tarta madaxweynaha iyo xukuumadda iyo qarankana aan wax badan yeelin waa dhinacaanu ka taagnay waa laga yaabaa dhinacaanu ka taagannahay in dhinacyo kale la eego waa suuragal ma lihin waxaanu ku hadlaynaa waa gar ma lihin sidaanu sheegaynay si kama dambayso laakiin aragtida noo muuqata ee aanu saaka ku soconnay baa sidaasa waxaanu madaxweyne istusinay in maanta ay ku fiican tahay markaynu wadcigeenna eegno in ninkaa iyo dhallinyarada la socota aynu qaadanno barnaamijka cafiska ah adna aada codsiga ah nala eegto aada iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada marti sharafta kale iyo salaadiinta iyo boqorada iyo oqaasha iyo siyaasiyiinta intaba waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalku dee marba intuu leegyahay baa laga dhigaa mudane madaxweyne annagu de waxaanu nahay sidaa laguu sheegay raggaa bari ka yimi hawsha 3 bilood ku soo jiray halkii ay nala dhaafi weydayna waa taa laga warramado suldaanka iyo wadaadkuba ka warrameen mar haddii raggii iga horreeyey ay wixii meesha laga soo qabtay iyo siday ahaydba ka warrameen dee ku noqon ma laha laakiin waxaanu sidanay ma ahayn jabhadda qura waxaanu wadanay dhowr qodob oo uu kaa odayaashu sheegeen iyo suldaanku ugu horeeyaan kuwa kale ee ka dambeeya baan anugu markaa wax ka taabanaya waxaa weeye 2 qodob oo mid waa nabadgelyo oo 3 bilood aanu halkaa fadhinay iyo soo socodka iyagaaba waxaanu tuurta ku siinay nabadgelyo waayo wax deeqa dadka oo qofka bini aadankaa ku filan nabadgelyo iyo caafimaad baa jira annagu markaa madaxweyne waxaan la soconay nabadgelyo ta kale waxay ahayd degmada ceelaf weyn oo dee waxaad ogtahay ma kuu sheegaa oo laga wada warhayo 4 sannadood iminka dab ka baxay dabkaana in si nabadgelyaana lagula baktiyo oo somalilan oo dhani u gurmato oo ay colaadaas ay mid naga soo afkooda noqoto
waayo dee waxaa la waayey waxbarashadii, waxaa la waayey caafimaadkii, waxaa la waayey nabadgelyadii. bahashii way nagu soo adkaato oo dee iminka waxay joogtaa halkii ugu dambayso magaaladii degmooyinka ugu sidatay. maalintii dhaweynaanu soo dhaafnay guri reer kaliishii ka guuray bay waka guddoomiyihii gobolkuna dee waaba fadhiyaa oo dee raggii hawsha badan ay ka haysatay kuu ka mid ahaa ee aanu maalin walba kusoo cabaadayna aanu lahayn. maantana halkana wax ka jiraan, halkan wax ka qabo aanu lahayn. taana waxaanu jecel lahay maanta Somaliland oo dhani inay dee guntiga dhiisha iskaga dhigto dabkaas la baktiyo. wixii kale dee aanu dhaafnayn odayaasha kale ku dulaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب هذا القاء دي هجي فرع دميي مدن مدحويني إرجال الصلاة تكتني ولا يستقدم بيصوم هاي يو أضيق بدن كل هدي عدي وناك كشغل عد بدن كل دين ويتبتاع وعدل waxa wanaagsan ay wadaan wax badan baan ka soo dabaalanay alxamdulillaah rabbil caalamiin. maanta hadaan nabadgelyo isugu nimi qodobkii cafiska waa laga hadlo ku tuman maayo. taasi waa ka midaysanaa, waa midaan isdana dhawaaqaaga unbuu sugaya. waxa kale nabadda aanu xambaarsanna waxaa ka maqaartiya waddadii tabca oo iminka kala go-an oo degmadii maydh iyo degmadii ceelgaaba kala go-an yihiin. waxaa la keenay gaadiid baa la keenay lasoo iibshay oo ka qayb qaadanaya horumarka waddada dhismaheeda, nabadgelyada maqaarti ka tahay taas. kale qaranimada jamhuuriyadda Somaliland markaanu wax badan eegnay ee ducayn badan uma baahna, laakiin jiritaanka iyo midnimada iyo wada noolaanshaha taa un baa dantu ku jirtaa. waxa waayeelku iska soo qaatay oo ku wada socda oo aanu xambaarsannahay oo hortaada dhignay madaxweyne arrintaa inaad si nabadgelye ah ku xajiso. gobolkuna xaasxaasiyad badan buu leeyahay, dhibaatooyin badan baa ka jira. taa ceelaf weyn ee ay ka dhalatay jabhaduhu iyaday kaydedalmeen, iyada gurmad badan bay heshay ceelaf weyn. insha allahu bismillaahi kariim waxaan isleeyahay maanta reeri iyagoo malawada socday ku yimaadona way iska dhammaan doona, laakiin ta jabhadda gurmad badan may helin. in baa un ku iyo toosanayd oo ku mitidaysa waa kugu soo sinnay wax la yidhi allo ku soo gaadhnayaanaan jira. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. marka hore madaxweyne ku-xigeenka xubnaha xukuumadda golaha guurtida iyo baarlamaanka wixii ka jooga, guurtida salaadiinta ah, cuqaasha, boqorada iyo inta kale ee marti sharafta ah ee golahan fadhida waa salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaam dabadeed hadal badan odhan maayo. xoogaa buu igu soo leexiyey maxamed shukri, waa fahmaya ilaahayna waxaan ka rajaynayaa. waa run oo jabhadda horta maanta laga hadlayo ninkii bilaabay baan ahaa. aan bilaabe anigu qaabkii aan markii hore wuxuu watay iyo qaabka maanta ay noqotay wax kala gedisan bay noqdeen.
waana la ogaado iyadoo dhexdhexaad maraysaan iskaga imi madaxweynaha waa isku ogna waana isaga nimo ka wada hadalna horaanu u dhamayna maantana inta dambe isdaba raacinteeda ayaan rajaynaynaa waxaana ballan qaadaynaa madaxweyne codsigaana waxaanu jecelahay inaad noo aqbasho annana wixii ka dhiman inaanu dhammaystirno oo aanu taa idinka ballan qaadno shalayna waa wada joognay madaxweynaha waxaanuna ka ballan qaadnay inaanu nabadgelyo aanu ka shaqaynayno nabadaana aanu dhammaystiri doono xalay maan seexan waxa i haystay dad leh ha tegin shirka waa run wallaahi inaanay timaha u dhoweyn inta xalayto ila hadlaysay ee igu leh shirkaa ha tegin murna ha ka qadhaadhatee waa tegayaa baan ku iri sababto waxa weeye dantaydii baa taalla dee dantaydana meelaan uga leexdo ma garanayo madaxweyne hadal badan odhan mayne codsigaa waxaanu marti idinka nahay inaad naga aqbashaan wixii ka dhimanna aanu dhammaystirna intaa hadal badan ku sii dari maayo waxaan ballan qaadayaa oo kolleyba aniga iga go'an wixii aan shalay ballan qaaday inaan dhammaystiro ilaahayna inuu nala qabto noogu duceeya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jamhuuriyadda somalilan madaxweyne ku-xigeenka golihiisa wasiirada dhammaan golayaasha marti sharafta madax iyo majin waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi alawal ilaahay baa mahad leh allah raxmaanka halka inuu kulmiyey ayaa mahad iska leh mar labaadka waxaanu ka mahad celinaynaa ergadii gobolka sanaag haddii aanu nahay amase aanu nahay ergada reerka dhammaantood waxaanu si mug iyo miisaan looga mahad celinaynaa qaabilaadda madaxweynaha uu noo sameeyey ayaanu aada uga mahad celinaynaa teeda labaad hadalkiida waa la dhameeyey suldaanka intuu yidhi ayaanu ku raacsannahay waxaanu maanta ka rajaynaynaa insha allah wuxuu nuur yeelaanay maanta u nooshihiin maanta waynu dhannahay waxaynu doonaynaana waa nabad waxay ku xidhan tahayna waa kelmadda ilaahay waxaanu ka baryaynaa allah raxmaanka waxaanu ka dalbanaynaa qabuulka iyo nabadgelyada iyo ijaabada aynu doonayno dhammaanteen in ilaahay saacadda aynu aqbalo ayaanu ilaahay ka rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu munaasabad nabadeed ee la isugu yimid inta isugu timi madaxweyne ku-xigeenka xukuumadda siyaasiyiinta xildhibaanada ganacsatada sulaadiinta cuqaasha saxaafadda dhammaan inta munaasabadna ka soo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib ilaahay baa mahad ilaahay bay u suganto mahadoo dhammi ilaah nimcada badanina siiyey ee nabad ay ka mid tahay nabadan aynu ku wada fadhinaynu ku tashanayno ayaa mahadle alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin mahad labaad waxaan u naqayaa madaxweyne ku-xigeenka xukuumadda shirkan qabanqaabisay ee qabatay waan u mahadnaqayaa waxaa kaloon u mahadnaqayaa guddidan uu suldaanku maxamed xirsiqani hogaaminayo ee sanaag ee nabadda codsanaysa ee nabadda sida ka timid ee hawsa soo howlgashayna waan u mahadnaqaya waa mahadsanyi intaa kolkaan ka gudbo saddex qodob baan ka hadli saddexda qodob baan ka hadlayaa waxay yihiin mid waa nabadda midna waa arrinta guddidu ka hadashay oon ka hadlayo weeye midna waan ku dacayn doonaa waxaan filayaa nabadda marka laga hadlo waxaa la yidhi saddex nimco ilaahay bixiyo cidda markaa haysata ma garato laakiin waxaa garataa la yidhi cidday ka maqantay nabaddaa ka mida aynu dee ku fadhinayno ku wada tashanayno ku ganacsanayno aynu wax ku baraynana ka mida cidda haysataa ma garataa la yidhi laakiin cidda gubanaysa een masaajidka xamilayn een ganacsanayn een waxbaranayn baa nabadda qiimaheeda u bali taa ilaa aan ku tacamnaan le waxaa la yidhi cidda caafimaad qabtaa ee caafimaad qab ku seexanaysa ku tashanaysa wax ku cunaysa qiimaha caafimaadka ma oga laakiin mararka jiifeen soo toosi karayn baa qiimihiisa og nimco cidda haysata xoolahan allayna siiyey ee agteeda taallaana ma oga baa la qiimaheeda laakiin
fiqiirka baktiya ayaa og baa la yidhi in waxba haysan nabadda aan ku tacabna baan leeyahay dowladnimadan aan ku tacabno mudane madaxweyne waana kaa wada codsanaynaa wixii maanta lagula yimid ee jabhaddaa saamaxadeeda ah inaad saamaxdo wax badan baa jabhada wax badan baa la saamaxay oo xal loo gartay sidaa darteed taa waxaanu leenahay saamax baanu maanta ku leenahay dalka iyo dowladda iyo nabaddaba wixii wax u taraya in qarannimadeenna waxba yeelayn diinteennana waxba yeelayn yay kugu adkaan baan lahay oo maanta saamax baan ku leeyahay taas waa mid innaguna maanta garxajis soo ma dhamin soo nabad iyo dowladdaba inaynu ilaalino iskuma ogin anigu hadalkaga intaasaan kaga baxaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم كلك أوه الرئيسة إله إن أبوري أمني إن سيء الدولة ماذا إن سيء علنك إن سيء الله وحاسو وسيرة وطيق يحرم الله أكبر إن سيء بان إله يقوم هذا مقيم مركا حكتا لما أنتين مدحوينة إيا مدحوينة كعيك إيا حكومة دع إيا بري سابك السناك إيا مير كي السناك iyo suldaanka guud iyo suldaankii waftiga watay iyo dadka qofkii aan dhaafo boqol goob baa la dhaafo xisaabaha midna kuma jira waxaan uu ninka saddexaad ee Hargeysa sidaa awgeed dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalka la budmin maayo waxaan la hadlayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan idinka codsanaynaa codsiga ay nimankaasi codsadeen inaad taxgelisaan ood gabagabayso ood goobta kala kicin oonu farxad la baxno uu gurigu guri jira iyo jamhuuriyad jirta iyo ummad jirta aynu noqono midda kale waxaa intaa habeenkii waa la isadalaya waxa la Muuse wuxuu yiri tustoorka manaanay tustoorka waxa ku jirta farqada 3 dadka ku magacawda teeda 6 isu keenida iyo isku haynta farqad la yiraahdo ku jirta taasaad akhriyaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينة جمهورية الصوماليين مدحوينة كحجينكا وسيرك أريمها جودها حملها وسير هذا قلها وسيرك هراء علي ورعد وسير عول حملها وسير هذا قلها كوي هراء قوة ضمبابة وفد البلارين السنادين تجود أي هجامين أيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي هذا الكود مدن مدحوينه ودم وجبي مدحوينه أنا أقول سيدي هذا كيف عقل الشاقي طبعا يوم يشاءوا أي شباب الدجنة هاي السودان كبدك يا أبانا هاي وحوي إن بتجي هذا أي شاقي السلادين تلقوه جميلين ونودني ونذكرها أحسن هاي وحوي runtii nabadgelyo iyaanu wadno galbinaynay daacad bay naga ahayd inaanu ku soo gaarsiisno waanu doonaynay wax badan baa jidadka nagaga hor yimi waxaanu ku ahayn sidii arrinkii maxay ahayd tooy nabi Ismaaciil markuu inankiisa la amray biray shaydaanku ka hor yimay waa ka carab shaydaan badan baanu madaxweyne iska naarnay waxaanu rabnay nabadgelyo inaanu ku soo gaarsiino أبناء نجاب دونتيد إن شاء الله وحنون لنا هاي إن شاء الله عدسي قاصان لقبا ويلك هراء إن هذه البلية نجاق بشيد وحنو كلا سيدا أي ويل هشاجين وحلي ويل حلم دقيسو جمهورية الصومال والله شغالنا وسيرة والله شغالنا قولها وسيرة والله شغالنا فرصاب هو وش غيرنا وسيره هورنا ونول شقي جري runtii marka la eego wasiirka arrimaha gudaha wasiir boos runtii hawl weyn bay nala qaban jireen saacad cali shira oo sagal laftiisa gobolka loo tiriyo wasiiradu way nala shaqay jireen hadeera waan la shaqeynaa waxaanu markaa mudane madaxweyne waxa weeye hadalka ku tuma maayo macnihiisu hadalku wuxuu yahay nabadgelyo aan wadnaa sidaa horena waxaan la qabaa codsiga waxa weeye waa codsigaasaan wadnaa waad noo saamaxaysaa rajo xunna kaama qabno inaad noo saamaxaysid baanu haddii alla rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي دنبينا هدف اللهم وفقنا لما تحب وترضى إن هرتا هذا المهرين madaxweynuhuna waxay la tahay maanta maalin joogeenu ka digan yahay hadalka meesha ka dhacay uga maqal badan yahay ma jirto horta anu waxa ilaa xalay waan faalatumayo waxaan lahaa mid iyada horta way idin sheegaynaayo xisbiyada mucaaradka iyo qabiilnimada garxajis waa kala laba horta xisbiyada mucaaradka ana garxajis aan ugu tirinayna de marka anagu qabiilkii baanu nahay horta waan kula qabiilnimo hadlaynaa dawladdaana waa ogol lahay madaxnimadana waa ogol lahay mid maanta uu nagu dhacay horta gidi xalan waa ka fikirayay codsiga deebta dafir maayo odayaashan la qaba buurtana waa kala keenay laakiin waxaan lahaa warniyo waxaan madaxweynaha ku horeysaan nimankii ni garaacisa laabta garaaci afka taagi jiray waxaan oranaysan ma barya ma soo jeedin ba baa sameeyay waxaan waa nooc maniyo uqsi billahi hadii garaaci la qaadanayo waa iska deynle hadda ma fahantay imikana dee ragga waa la qabaa mar hadday naga soo dhacday wax kaleanu samaynaa baanu garan weyne waa la qabaa mid baa naga guuxaya midka naga guuxaya waxa weeye abti tabasho guud baanu abti qabnaa madaxda qaran iyo dhaqan iyo baamushtar iyo culimo iyo da' walba ay soo timid aad iyo aad baan soo dhaweynayaa mar labaad waa soo dhaweynayaa shirkanan maanta fadhinaa wuxuu ka mid noqon doonaa bay ila tahay shirarka taariikhiga ah ee nabadda iyo horumarka dalka lagu urko intaasoo waayeela oo intaas dhan soo shaqeynaysay oo huba nin waliba inuu in badan u dib jiray oo caafimaadkooda qaar badan waxu dhimeen oo muddadaa ku fogday oo wuxuu shaydaan ka adeegay oo aanay ka talinin oo aanay ogoleen u taagla ee dhibaatooyin badan ku muntay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu inaga soo gabagaboobo oo aynu helno xalkiisa inoo wada jira dhammaanteen waxaynu doonaynaa xal qof walba halkan waxaan ogahay dhibaatada uu qof ahaan u qabo arrintanaa soo jeedseen marka hore waxaa inoo guddoonaa inaynu nabad qaadano oo nabad ka wada shaqeyno wax walba nabad aynu ku dhamayno waxaa inoo guddoonaa wax walba inaynu nabadda ku horumarino inagoo isu duuban oon kala sheegsan arrinta dhibaatada sanaa ka jirta ee ciidankaasa laba qodob baa soo dhigteen mid wuxuu ahaa nabad baan wadnaa nabadda nala qabo iyadoo waa guddoono waa ka joogaan ta ciidankaa timid saamaxaad baa soo jeedseen saamaxaadda madaxweynaha inta uu awoodinaya waa taqaan lama odhani waa boqoroo wuxuu doono sharciga uu ka boodi karaa halkaasuu mari karaa saamaxaaddu wadday samaysay sharciyana oo loo maro aniga oo wax waloo nabad lagu helayo diyaar waxa ogol wax wal oo nabad lagu helayaba anoo idin kala mid ah haddana marna qof baan ahay hebelow adigu waxaa adag ka mas-uula qaba ah waxna waa lagula leeyahay oo adigu ma qaadan kartid hawsha inta anigu iyo xilka aan haya xilka madaxweynuhu uu ogol yahay een awooddeeda leeyahay waan qaadanayaa waa fulinaya waxa igaga xidhan heer qaranna waddadii lagu fili lahaa baynu wada doonayna oo anigu keligay aanan goyn karayn dhibaatada maanta ka jirta tirada ciidankaa saamax ciidanku wuu kala qaybsamaa ciidanku waxay leeyihiin sharciyo gaara oo ka duwan xeerka madani ee shicibka lagu qaado laba maxkamadood baynu leedahay mid waxaa lagu waata ciidanka midna waata madaniga ah xaalkeenna arrinta ku jirtaa waa arrin ciidan xeer ciidan bay martaa ciidamadu kuwa kale way ka duwan yihiin sharcigoodana wuxuu ilaaliyaa qarannimada ciidanku waa dad aynu isu geynay oo beela ka wada tirsan oo nin walba reerkiisa iyo isaguba sidaa adinku aa wadaan marka dembi dhaco odaygii soo kacayo oo lagu soo qayrinayo oo leeyahay inankii haloo gargaaro dembi uu gala hal dhaafo laakiin ciidamadu taa ma raacaan maalin walba waxaa maqashaa nin ciidana xerada ka maqlaan maxkamad baa la saaray dembi buu galay maxkamad kuwa kooyn baa la saaray taasi waxay ku eg tahay ciidamadu inay adkaadaan waayo haddii iminka qof gaari ka dhaco ama gaari jiiro bilowkana waa la xidhaa reeruhu isu yimaadaanoo iyagu maxalka gaara baabka u xidhnaadaa waxaa la waaytaa maalin walba ciidamada qaranka waa la dilaa cadowga ma aha waxaad maqlaysaa nin buliisaa ku dhintay rabshad
waxaad maqlaysaa nin ciidan nin xabad kaga fakatay odaygu ma soo dhex galo cid looma doono maxkamadda ciidamada la mariya xataa ilaa dilkiisa waa waxa ciidamada loogu siiyey markaa sharci gaar ahay wixii adugu aan awooddeega tahay iyo xukumad ahaan kow ciidamada waxay u qabseen saraakiil iyo askar waa kala kiis inamada halkaa jooga sarkaalkaa sare ee magacowdeen ee hor jooga mooyaane intooda kale dhammaantood saacaddaa laga bilaabo wax alle wixii qaranku dambaysta waan ka saamaxay waana la saamaxaya waxaanay diyaar u yihiin galabtada in guddigii farsamo loo saaro ciidamada qaranka ka mid noqdaan toos sharcigaa iyo laakiin saraakiisha sare ee hogaamiyaha gaashaamaha sare ee halkaa jooga maanta waxaynu u baahannahay inaad ii soo martaan sharcigan ku saamixi karo sharcigu wuxuu ogolyahay oo saamixi karaa marka dambiga intaa eeda intaa la joogto qofkii inuu xiran yahay oo dembigii uu qaatay uu xabsi ku jiro oo laga fikiro qofkii dembigana waa ka baxay waana ka cafiyintana isku mida saamix awooddaa saamix qofkii dalka ma joogo 93 baa iga hortaagan awood keligay aad sarkaal sare oo ciidankiisa ka hor yimid aan keligay goyn kara hadday tahay intiina ma baan diideen wax walba waan siisan lahaa laakiin waxaana qaadi karay xaaji cabdow qodobka aad sheegaysaa iga hortaagan 93 baa iga hortaagan wuxuu leeyahay dadka isku hay oo qofka dembi gala dembigiisa baa ku qaban qadii kale qofka dembi galay sheekh sida quraanka waad sheegtay da adalan ka buusaday ya aayad quraan aad sheegayso adigu awood يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين ورقفكم مركب الدم بقلم يكون شوك سوتشوج حتى هذو نفتاذي هاي حتى هذو الوالد كاي هاي حتى هذو قريب لو كان قريب أو فقير أنا هركي بيتاكتر تشاتك مدحونا تيدتك وحان قادة شرعي سكتاي وحمسون بالوين يعني أرجعني ساسان وارملي wixii sharcigu uu ogol yahay runtii waxa ilaahay baa mahad leh aadna waxaan u jecelahay inaan wax wanaagsan inoo noqdaan oo si fiican u dhacaan mudane madaxweyne si fiican baanu jawaabtaadii u garannay inta horta aad noo cafiday waa kaaga mahad celinay waxaanu ku leenahay jazaaka allahu khayr waana noo guddoon arrimuhu marba meel bay dee taagay waana laga yaabaa qof maalin kelmad u toosan inay maalin la qalloocato haddii qarankaa ka weyn qofka waxaanu aaminsannahay in qofka qaranku ka weyn bal waxaanu aaminsannahay wixii sharcigu yahay in qof walba ay dan u tahay wixii sharcigu yahay qof walba dan bay u tahay kaanu kaala hadlayno iyo annaga iyo adigaba dan bay u tahay haddii aanu dee qodobkaa ku wada soconnay muddana la waday dhowr kulanno ka dhacay maantana halkaa ay taagan tahay dee waxay la tahay mid waa jirtaa madaxweyneo anigu waxaan aaminsanahay oo tolkay ku leeh oo aanu adiga kugu leen oo anigu aan arkaya in maanta aanu qaadanno qodobkaa aad tiri inaanu qaadanno qodobkaa aad tidhi oo inankaa sida ugu sahlan maadaamaad ciidankii kale noo cafiday oo inoo cafiday ila waa wada leenna aanu annana qodobkaa qaadanno waxaanu qabnaa oo ragga meesha imu wada muuqata inaynan maanta qabiyo wax ah halkan aynaan kala tegin marka koowaad waxaan la qabaa cawl faatax waan ku faraxsanahay cafiskaa guud ee uu siiyey dhallinyaradii iyo dadkii maaragtay dhallinyarada ahaa ee warka khaldan sidaa uu yidhaahdee loo sheegay cafiskaa guud waa soo dhaweynayna waana ku faraxsana
halkan dee waxaa fadhida ergo badan oo reer ceergaabaa oo arrintaa danaynayey waxaan ku celinayaa mar labaad hadal caataay waa liid haddii qaranku uu soo jeediyey talo inkastoo aanan maanta xusbi ahayn ee aan reer ceergaaboo doodayo ama nabadda aan raggii daadihinaya ka mid ahay waxa weeye go-aankaa waanu qaadanaynaa waxaanu u qaadanaynaa qaranka ayaanu wax ku leenahay qaranka ayaanu ka tirsannahay cabatiku waa meeshiisa waxaanu ku qanacsannahay inaanu kan kuwii dhisaynahay annagu kuwa doonayo kuraasida maanta halkaa la fadhiyo inaanu berrito fadhiisanno inaanu nahay baanu ku qanacsannahay oo ognahay insha allah ilaahay hadduu na gaadhsiiyo kullibana maanta madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdigiisu maanta iyagaa nasiib u yeeshay inay halka fadhiyaan qarankana hogaamiyaan wixii qaranka dhib ku ana inaanu ka wada tashanno oo aanu ka tala bixinno oo aanu qaadanno oo aanu weliba si qadhaadh u qaadannana waajib bay nagu tahay sababtoo ee wixii aanu la soconnay ee arrintaa cafiska ahayd haddii qaranku ka maagay waxa weeye sida ugu dhibta yar waxay haddii laba dariiq isu soo kaa dhinac galaan waxaa la qaataa ka ugu dhibta yar leh waa dee wax diinaya makaamudana madaxweyne inkastoo aanu rag badan ishayno oo aanu isku hayno war dowladnimada iyo qarannimada iyo hala taageero oo hala wado oo hala dhiso haddana qodobkaa maanta si waxaanu u qaadanaynaa si rasmiaanu u qaadanaynaa sidii ugu dhibta yar ee arrintaa korneylka caare lagu xallili karana annaga iyo inta degaanka ah iyo intiina kale ee madaxda qaranka ah iyo taakuladooda ayay noo taallaa waana qaadanaynaa waxa la yidhi haddaad sidaad jeceshahay weydo dee sidaad ka maarmi weydo waa inaad yeeshaa allayla maanta waxaanu jeclayn iyadoo labeentii reerka ku hor fadhiyaan inaad tiraahdo kaxaysta aqbalay aad baanu jeclayn laakiin sharciga waxbaad noola baydhayiyo distooriya waxbaad nala qabatay carabtuna waxay tiraahdaa alwasta fooq alqaanuun taa inaad noo egtaabe wastadu waa ka sarreysaa qaanuunka ayay nimanka yaahdaan carabtu waanu lahayn maanta alwasta fooq alqaanuun inaad wadaabaanu doonayn dee nagu diiday wax badan adoo xeerinaya kollay intayadan aqbalka tiri waanu yeelnay iga horreeyey anna aqbalay mur hadday ka qadhaadhaanayso raggii iga horreeyey waddaday jeexeen ayaan kula shaqaynayaa kuna raacay insha allah waxaan rajaynaya inay guul ku dhammaato biidni illah alkariim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ده ورا الله شيء أنا هذا ده إسكابن لكن رجل أورما يوم كل حسنا يوم حلول لها وهذه الحكومة عقل جدا اللي كوكل بدلاد ويجي لك كين اللي كوكل بدلاد لا ركعت هذا الكوك علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيس ما لك هالليه ما هالكي وات كيد ويا هالكي لبا الريموت وإن بدن قرياشي عن سومر لي hawshaa aan ku soo haynay gaar ahaan intii aanu hargeysa dhex joognay marar fara badanay hor yimi haddaanu ahayn habar yoonis bare iyo garxajis bare iyo markii aanu siyaabaha gaara u soo maraynay ayaa halkan iga caddaaday oo rag badan oo iminka fadhiyaan ay ku doodi jireen weliba maxamed cerse qarigaasi wuxuu odhan doonaa waa yahay wax walba qaar ragga jooga lahaa maantana wuxuu yidhi waa maqlayay idinna waa maqlayseen kama hadlo danta reerka waa dowlad maal oo kayduu saaraa degdeg buu saaraa bay nagu yidhahay yeelina taas waa kaa haddeena noo caddaatay halkan iminka wuxuu madaxweynuhu ka yidhi waxaa sidateen baan aqbalay inamadaasaan cafiyey inankaa sarkaalkaana sharciga ila eega hadday inagu yidhi ila eega abtiya ila eega hadalku ku celceliyey aad baan u dhegeysanay
kaasuna kuwii odhan jiray sidaas laftoodii waa fadhiyaan idina taana garta oo la qaadaba annaga waxaan ugu lahayd waxaas waxaanu maragu nahay labaduba inay halkaad noo sheegteen meel aan ahayn mareen oo xaqiiqa ah haddaanu bayro tan aynu iminka halkan ugu nimi arrintaa madaxweynuhu jawaabtiisii ahayd ee uu sheegay inuu cafiyey inamadii jabhadda ahaa korneylka marka laga reebo wixii kale tirada doonaa ha noqdeen isla markaa lagu darayo ciidanka qaranka sidaa uu yidhi baanu war qaadanay inankaa isaga ahna wuu tilmaamayo sharci haddaynu hayno inaga keenayna haddaynaan hayn isaga naftiisa dee tilmaan ka bixiyey saxa anigu taa uu qaatay baan la qaadanaynaa waan ku difaacaynaa waan ku kaxaynaynaa dadkeennana waan ugu geenaynaa weliba waxaan ugu sii darayaa xalay qolo qurba joogoo nala hadashay dadka been iyo balaaya laga baafiya waxay nagu yidhaahdeen qurba joogtuna waxay akhriyayaan wax la yaab anigu nimankii xalay nala hadlayay siday u hadleen weligay waxaad laba maarag maaha war maaha dadku ma wada aha sidaa wallaahi waxay nagu yidhaahdeen maxaa la tegaysaan caawa oo markaa madaxweynaha u tagtaan miintaa soo noqotaan baa tashan doontaan markuu idin yidhaahdo diine mise go-aan baa qaadanaysaan anigoo ka dhowrsanaya ayaan ku yidhi kollayba rag hadduu isu tago kuma kala fogaansho ku kala iman mayno haddii loo baahdo inaanu isku noqonnona waanu noqon haddii loo baahdo inaan halkaa go-aan ku gaarhnana waanu gaari doonaa laakiin iminkaydin sii maayo ka iyagaa waxay ugu shajaaciyeen maya hayeeni sidaa go-aan qaata ka uu idin yidhaahdo qaata oo u tanaasula idinku wallaahi bilaahi tallaahi bay ugu yidhahdeen dadkaasi qobajoog bay ahayd dadka waxbaa laga wada sheegaya waxaan madaxweyne kuu caddaynaynaa garxajiskuna ma wada aha dad xun inta silsilado fara badanna waanu soo marray oo qodax badan leh mid wanaagsan oo la xumaynayaana wuu jiraa mid xun oo la xumaynayaana wuu jiraa meel walbana wuu jooga ka xunna aan meel uga soo wada jeesano ka wanaagsan ee la xumaynayana aanu hubsanno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waraxmatullaahi wabarakaatu kolley dee waa horaa loo sheego anigu eedaydu iska badnayd laakiin raggan odhan maayo waa ku raacsanaya waxaan odhan lahaa war haddii xukuumadda caqligeeda aynu ku kala badbaadi weydiin keynaynu ku kala badbaadayna arrinkaasaas ku qaadanayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waanu kula qaadanay arrintii aad natiiso go-aankeeda waxaanaynu ku dadaalaynaa sida aada noogu doonisay inaanu ku dhammaysano oonu ka soo qaadno arrin aan laga noqon karayn waxaanan jecelahay dadku af soomaaliya si fiican unooga yaqaano oo turjumaadiisaaba ku adag marka hore laakiin arrinta day iminka go-aamisay way noo cadday waanu kula qaadanayna arrinkaasi waxaanu kusoo gabagabeynayaa arrinkaasi arrin dib looga noqdo wax ma aha sidaa aan ku hambaliyeyno madaxweynaha iyo waxaanu aada iyo aada ka mahadnaqaya odayaashiina waayeelka ee 2 sano 4 sano dhow intaa kusoo jiray ee intaa wanaag doonayay ee kolba shaydaan ka adeegaya inta la kala tuuro haddana eedda iyo dhibaatay la saarayay ee anugu wanaagga u socotaan maanta inuu halka kaga tirayna in badan oo sharka jecel ay balaay ka sheegi doonto adkaysiga iyo garashada dadka qaranka raacdeen aada iyo aad baan ka mahadnaqaya qarankuna waa idin ogyahay annaga xukuumad ahaan iyo dowlad ahaanna waa noo guddoon iyo rag nala dhisay qarankii oo wax ku adag qaatay taasuun baana way ku dhisma karaan waxay u adkaanayaana waxa weye dadka idinka dambeeya ee maamushaan dhaqan ahaan suldaan caaqil oo wax badan oo macquul ahayn xasaasiyadu la keliyey waxaan ogahay dhibaatada jirta taa usoo badhaynaya inta horeba waa idinka mahadnaqaya cid waloo dhibaata la soo gudboonaatana inay sidaa yeesho oo danta qaranka ka horisanta kale ayaa tusaale u noqonaysaa suldaan maxamed oo uga mahadnaqayaa hadduu yidhi waa dowladda hadday soo taagtayna waan qaadano dee qarankii baanu eegaynay ilaa anagu qol ahaan waxba umanaa cadaadinayna inaad qarankii nala eegteenna waa idinka mahadnaqayna halkaanu qaadanay intaa aada qaateen waa idinla xajinayna dowlad ahaan meel kaloo lagu wargno nabad in lagu guntado la isdul qaatana garan mayno waanu idinla garabgaraynaa hagrashana waa naga wada